ku dhawaad 200 oo dhalinyaro ah oo ka kala yimid gobolada Puntland ee sagaalka ayaa ka qayb galay tartan orod ah oo loogu magac daray Puntland Mini Marathon. Tartanka ayaa ka qabsoomay magaalada Garowe waxaana soo agaasimay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda Puntland iyo hay'adda UNFPA. ugu horeyn waxaa tartanka furay wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland Jaamac Faarax. aad iyo aad baan u faraxsanahay runtii waa farxad weyn munaasabadan intanoo dhalinyaro ah oo u diyaara inay ka qayb qaataan orodkan marathonka gaaban 5 kilomitir galabta ka dhici doona insha Allah waxaan rajaynayaa orodkan markuu dhamaado ilaa caawa laga bilaabo inay soo bixi doonaan rag badan oo caan ah oo magacyadooda TV-yada laga naadin doono insha Allah Puntlandna ka noqon doona haliyeeyo waxaan idin rajaynayaa guul waxaan rajaynayaa wasaaradda iyo dawladda inay tani ka mid tahay ay tahay mid ka mid ah siyaasadaha dawladda Puntland xagga horumarinta dhalinyarada sportska hogaaminaya madaxweynaha Puntland sida Cabdullaahi Deni waa in dhalinyarada iyo sportska kor loo qaado sidaad ogtihiin horumar weyn baa xagga sportska ka socda ciyaaraha garoomada Puntland oo dhan way dhismayaan insha Allah intooda badan insha Allah marka waxaan rajaynaynaa ilaa tuulo ilaa degmo waxa ka socda dhaqdhaqaaq iyo kacdoon dhalinyaro oo kor loogu qaadayo sportska tuulo walba iyada hadda doonaysa inay garoon sports dhisato xaggooda iyo degmo walba insha Allah laba bilood ka bacdi isbedel weyn oo xagga ciyaaraha baa dhici doona marathonkan iyo ciyaarahan san shalay idin sheegay maalintii dhaweyd wasaaraddu xil bay iska saari doontaa insha Allah bish sanadkiiba 2 jeer ama ugu yaraan hal mar in la qaban doono ciyaaraha noocan oo kale haddii la ka dhigo dadka ka soo baxa maxay tahay ka soo muuqda maxay tahay orodkan ama orodada noocanana haddii la ka dhigo dawladda Puntland wada jirta iyo madaxweynuhuba inay mudnaantooda haddii la ka dhigo ay yeelan doonaan siin doono intaasaan kusoo gabagabeynaya orodkiina wuu noo bilaabmayaa salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhalinyarada ayaa ku tartamayay masaafo dhan 5,000 mitir iyagoo orodka ka soo bilaabay duleedka waqooyi ee magaalada ugu dambeyntii markii la soo gaaray halkii gabagabada tartanka waxaa kaalinta koowaad ka galay tartanka Maxamed Cabdinuur Jaamac oo u ordayay gobolka Sool halka ilaa 10 ciyaaryahan oo kale ay kala galeen kaalmaha kale ee xiga ugu dambeyntii waxaa xaflad si wanaagsan loo soo agaasimay loo qabtay dhalinyaradii tartanka ka qayb gashay ee ka kala yimid gobolada Puntland waxaana xafladaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waxaana madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale ee munaasabadda ka soo qayb galay ay ku dhiirigeliyeen dhalinyarada inay sii wadaan ciyaaraha kala duwan ee sportska sharaf weyn ayay tahay maanta xafladan inaan ka soo qayb galo taariikhiga ah waxaan aad ugu faraxsanahay inaan xafladan taariikhiga maanta waxaa ka dhacday caasimada dowladda Puntland magaalada Garowe tartanka orodka gaaban ay ka qayb galeen 200 oo dhalinyaro ah maanta inaan halkaan imaadno si nabadgelyo ah oo guul ah ku soo dhawaado farxad weyn oo ballaaran bay tahay sidoo kale farxadan waxay ku soo beegmaysaa sanad guuradeedii hay'adda UNFPA kontonaad ee ka soo wareegtay xilligii la aasaasay hay'adda UNFPA sidoo kale waxay ku soo beegmaysaa sanad guuradii 25aad markii la qabtay shirka caalamiga ee International Conference of Population oo shir lagu qaadayay tartan isdhexgalaan waa dhalinyarada halkan ka timid isma yaqoon dhalinyaro gobolada kala gedisan ee Puntland ka kala yimid weeye runtii rag badan ama kuwa badan horey soo aqoon isku bartay waxay door ka qaadanaysaa xagga isbarashada iyo isdhexgalka dhalinyarada waxaan wasaaradda ugu qorshaysan inay tartamada noocan oo kale ah ee marathonka ay sii wato haddii la ka dhigo waxaan doonaynaa sanadkiiba hal mar ama 2 jeer ama ugu yaraan hal mar inaan tartamada kale qabanno haddii la ka dhigo intan oo qayb ka ah runtii siyaasadda xukuumaddaada kana mid ah yoolkaagii horumarinta dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda ay dhisnay waan ognahay isbedelka iyo horumarka xagga dhalinyarada iyo sportiska iyadoo garoomada Puntland muhiimka ah
ama intooda muhiimka ah maanta dhammaantood ay wada socdaan dhismu ka socda shaqaalaha iyo dhalinyarada oo maanta halka marti loogu yahay mas-uuliyiinta wasaaradda iyo dhammaan bahda isboortiga ee halka joogta qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dhallinyaradii ka qayb gashay maanta tartanka gaaban ee marathonka ee 5 kilomitir waxaan oran karaa dhammaantiin bahanbalyo intii ka qayb gashay waa wada guulaysatay guushiina waxaa saldhig u ah inaad u hollateen ood isku daydeen inaad tartantaan orodkaas aad soo marteen waxay ka dhigan tahay dhammaantiin inaad wada guulaysateen waxaa wasaaradda iyo macallimiinta isboortiga u sahlan inay kala bartaan dhallinyaradooda dhinaca orodada ah siday u kala habboon yihiin iyo siday u kobcin lahaayeen kuwa weli u baahan tababar dheeraad runtii isboortigu muhiimadda uu leeyahay guud ahaan bini aadamka gaar ahaan xukuumadda marar badan baa halka ka sheegay bulsho ahaan bulshadeedu dhallinyaray u badan tahay dhallinyaradu markii magaalooyinka la soo galay dhallinyaradeen miyiga joogtay waxay ahaayeen dad fardafuulka iyo orodada iyo bootinta iyo inta badan sports ah laakiin markii magaalooyinka la soo galay waxaa batay fadhigii sheekadii iyo dhaqamo aan qofka bini aadamka أحمد علي سعيد هو الجواب gabagabadii waxaa dhallinyaradii kaalimaha hore ka gashay tartanka la guddoonsiiyey abaalmarino ka kooban lacag iyo bilado waxaana gacantiisa ku guddoonsiiyey madaxweynaha puntland Saciid Cabdullaahi Deni kaalinta shanaad cabdiqani maxamed cabdi gobolka Darfuur kaalinta afraad xamse jaamac xisbi gobolka Sool waa kaalintii koowaad maxamed cabdi nuur jaamac kelimaata gobolka Sool wuxuu ku guulaystay lacag gaadhaysa $500. sidoo kale waxaa dareenkiisa nala wadaagay maxamed cabdinuur jaamac oo ahaa orodyahankii kaalinta koowaad ka galay tartanka waxaan wax ka weydiin doonaa dareenkiisa maxamed cabdinuur dareenka ka waran الرحيم آدي آد بدرين كعسية هاي إلهي ومحاد إسكالي أنتي كلبت الجود مليسيي كاليت الكوباد أرد 20 كيلومتر إلهي بأنا أود إسكالي إلهي بأنا محاد إسكالي مركب هذه مرة هذه مسحات هذا وحنقول مع العناية مع القرآن وفنتي آد بدال بدل بكلين السيي فنتي آدي آد بكلين بدال بدل السيي أنا هل كلام مع العناية مع عبد الساق معنا في كوح ضيدا يكوح إليس يعني أورتيا قبل الصول يعني أورتن حافظ كمية قبل الصول يكوح كمية آد مركب هذه مرة هذه مسحات وحنقول عناية مع القرآن وقبل الصول وأنتي كانت كوبا شوفي كيلومتر أرد كها كلاي في بالي بوجع سيها هاي أسبوع عن أسبوع يكون في السنة غير كسر دارس ها ممكن هو في أسبوع يكون قبل الصول كانت كوبا كلاي أرد كيسي 5 كيلومتر أسبوعين دويتو كانت كوبا كلاي كنا إن شاء الله وفلي إن كانت كوبا كلاي كان يقوى كسر دنبي يقوى كسر بدن حاجتين إن شاء الله إن كانت كوبا أنكرو آدي آدان أوفر أحسن هاي مركب هذه من الوالي مستحاد وحنا أمها الليلة وسيرة ساركين وفي آد وسود ورسي وقبل كن دروة جوبته آدي آدان وسيرة ساركين وسود ورسي آدي آد بعض ما صنت هاي عبد الله عبد النور يوسف عبد الله بكيلة warbaahinta Radio Sahan Garowe.